حرش علي حاج حسن oo dariiqa ictiraafkeeda lagu taagan yahay 2012 khiyaamiyay Somaliland god ku riday inuu maantana mar labaad inagoo soo taagan inoo indhaheennoo shana iyadoo oon wasiirka khaarijiga laga dhigin oo aan la dhaarsan mar labaad shirar lagu khiyaamaynayo Somaliland oo ictiraafkeeda lagaga soo horjeedo ku galay Djibouti kaasuu barnaamijkeenu daaran yahay aan bilaabay xirsi cali xaaj xasan waa nin dhiiran oo indha adag oo ku dhiiran inuu 60 milyan ee Somaliland inaan ka yiri iyo shakhsiyaad la socdo oo aan badnayn oo ganacsatay iyo ururdiimeed leh ay aftuubaan horuu ugu dhiiraday oo iyadoo oo waxaan ku ri ay xaaraan tahay Soomaaliya lagala shiro siyaasad uu u dhuuntay oo si tuuga ula shiri jiray oo waliba markii heritage laga sheegayna inuu la hoos ula shiri jiray indhaadayga wuxuu ka qaba qartay horta waa kan waan idin xasuusinaya ila dhageysta marka aan wada hadlaynay xubnaha Somaliland oo qaarkood hadda goobtan fadhiyaan si qarsoodi noola shiraay ka dhawaatiyay qarsoodi baa wada ku bilaabo Muuse Somaliland ku fiicnaa xasuusiyo goodax qarsoodi cid kula bilowday baan ahaa wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ninka bilaabay waa aniga waxaana marqaati iga xirsi dhageysateen ninkaasi siyaasiga ah ee Soomaaliya wuxuu ku cadeeyay xirsi oo fadhiya heritage inay hoos u shiri jireen midnimadana ka shirayeen xirsina mabuu dafirina uu qartay indhaadiga wuxuu ka qabo ninkaasi 60 milyan ee qof ee Somaliland inuu mustaqbalkooda god ku rido oo shilimaan dhaafsado inagoo arkayna ayaa horena ugu suuro gashay markii lagu xisaabtami waayay ee maxkamad lagu saari waayay ee lagu dagaalami waayana maantana waa ka isagoon xil noo hayn oo aan la dhaarsan heshiiska ku galaya maxay leeynagu xaabanayo Djibouti oo intii nala dagaalamayay kula shiraya wasiir lagama dhigan dawladdu xilo ma dhiiban wasiirka khaarijiga runta ahina waa isaga kan kale waa maqaarsaar isagana keenay oo maqaarsaar oo prime minister ka ogaadeen uu ku shaqeysto ninka la yiraahdo Xasan Sheekh oo kale maxay meesha lagu buuxiyay lagu la dagaalamay qolada indhaha soo jeedaan garanaysa ma jeerteen lagaga kaxaynay boos kiisi weyn kana ay qof wax garanaya waxa loo keenay waay maxay oo sababta hadii inuu xirsi wasiirka khaarijiga runta noqdo waan noqdo waa ka maanta shirarka xalay kula galay Xasan Sheekh iyo maxay iyo Ismaaciil Umar Geele walkii kala taagnayn aynu ognahay waxa la leeyahay wax Djibouti maanta ay naga yaala oo dano ay naga xiran ama ay yeeli kartaan ma jirto waxa kaliya ay naga xiran waa shakhsiyaad ganacsato ay dantooda ku xiranta Somaliland wax dano kaga xiran ma jirto siyaasadda maanta gobolkuna ee MAU keenayna waxay ku jirtaa murug Xasan Sheekhna beenaalaha ugu weyn ee way ayuu noqday dooq ayuu aga kula jira ballan buu la galay Masar ballan buu la galay Qatar ballan buu la galay Turkiga ballan buu la galay Xasan Sheekh ay aamin Ismaaciil Umar Geele ballan buu la galay Afwarqiga meesha lagu dhahdo Eritrea ballan buu la galay Turkiga kii ugu dambeeyay Turkiga uu ka baxay waxay isnaadeen Ethiopia oo qiyaamay oo waxay ahayd walaalkii buu ciidamada ku jirtaa maxay Soomaaliya maxay nabadda ilaalinaya haddana kii waa kii ka hadlay u joogay qaramada midoobay kuma jirto waa kuma jiri karto Ethiopia yani waxa uu ballamada la wada galo dhammo isjiray isku hor imanaya dhiiqo caga kula jira adduunka oo dhan warkaya saacad ba dawladda caraysan waxana wax isku wadi kara maaha sababta inagoon maanta waxba uga baahnayn waxna aanu yeeli karin oo Puntland waxba yeeli karin waayay Jubaland aynu u doonayna aanu garan maayo aan ahayn بريو هرنا فرتك مليون حرس كوفانية وحكاها Soomaaliyeed uu ka saaray maxay daayeen baasha maxaa ku meel gaarka maantana lacagta malaayiinka dollar uu nacay
qarannimada u diiday musabix ee xaniban ayaynu soo qaadayna qayrka lagu qabsanaya baa layidhi taasaa hungurigaas halkaa geliyananka iyo ururka ictisaam oo aaminsan haddii etoobiya timaado ama maraykan yimaado halkan oo somalilan ictiraaf gasho inay dhimanayaan waa labadaa qodob in lacag la helo iyo urur siyaasadeedkaasi inuu dhimanayo labadaas sababood weeyaan mustaqbalkii somalilandna wuxuu ku jiraa madax bannaanida oo nimankaa meel walba dagaalka inagaga wada intaynu kala badbaadna waa intaynu kala maqnayn lixdankii wixiina gaadhay ilaa intii isu halgamayna inanka ayr doonaya maanta inuu god ku rido iyo shakhsiyaad kooban oo la socdo ganacsato iyo urur diimeed leh doqonnii bay nagu tahay inaynu daawanno maanta wixii koska intaa laginagu fadhiyey dadkeennii kala bar aynu ku weynay ee wax allo waxaynu 100 sano u shaqaysanayna aynu ku weynay koska intaa laginagu fadhiyey maanta cidina dhaantaana ayna jirin in maanta danteennii iyo mustaqbalkeennii shakhsiyaad lumiyaan doqonnimo ka weyn ma jirto inaguna aynu daawano waxaa layna leeyahay oo laynaga dhaadhicinaya garaad kulmiyahan absame ee jidwaaq ee reer wiilwaal ayaa nabad inoo keenaya oo waxbuu inoo keenaya laascaanood buu inoo keenaya wataasaynu aqbalnaa oo carruurteena iyo dadkeena iyo dumarkeena iyo magaxmagarateena loo sheegaya run ma tahay weeyaan su-aashu maya waa been garaad kulmiye deegaankiisa waynu naqaanaa isu deegaan baynu nahay degmada qabri bayax bay naga dhaxaysa inagii jidwaaq meeshan lagu dagaalamayo iyo deegaankiisu waxba isuma jiraan ee ummadda badan ku dhimanaysa waa naqaanaa halkaa marka oo isu muuqdaan halta sheekha iyo meesha lagu dhahdo qabri bayax oo waa jidwaaq iyo door baa wada dega ama isaaq xaggan araarso ilaa waddadan iminka layna marinayay laga dagaalamay deegaankiisa iyo waxba isuma jiraan iyo deegaanka lagu dagaalamaya kamuu hadal xitaa baaq kamuu dirin laascaanoodna nabad baan iska keenaya way ka dhegaysanayaan qaar inooga keeni maayee waa khiyaamadii maalintii dhaweyto odayaashii lahaa nabad baanu idiin wadnaa ee intay nabadda u sheegeen dacwaley lagu galay wallaahi tii oo kale weeyaan wallaahi waan dhaartay waayo garaad kulmiye waa ninkii maalintii ay isdilayeen qayaad iyo maharaarsame ee ciidanka somalilan ku kala dhex jiray ku yidhi cadow baa idinku kala dhex jiray ka dhex qaaday yidhi jijigaan idinku heshiisiinaya ee kuwan iska saara isaaq waa ninkii dagaalka laascaanood ka dhacay kusoo kariyey jigjiga waa ninkii cuud iyo xoolo iyo ragba ku bixinayay dagaalka laascaanood kii baale maanta nabad baan idiin keenaya horaan idiin lahaa dagaalkaas waa dagaal siyaasi ah horena waxay iyagu lahaayeen kuwa ictisaamka gudaheena jooga labada beelood baa la heshiisiinaya in xasuusintiin mooyaane ee habar jecel iyo dhulmaanti maantana nimankii hadlayay waxay yidhaahdeen ninkii caligariye hadlayay maxay dayeen ina garaad soofin wuxuu lahaa dagaalku waa dagaal siyaasi ah labada maamul baana ka wada hadlaya heshiiska halkaa aynu ku gelaynaa waxaa la isku hayay siyaasad ayaa la isku hayay dowladnimo qabiil isma hayn maalintii hore waxaa lagu khiyaamay inuu lahaa qabiil baa sayna qulahay ictisaam oo erge qabiil baynu dirana waa tii halkan ilaa maxay koox innaga laga diray oo suldaanka arab hogaaminaya burcay tageen inay lahaayeen waxaanu heshiisiyeynaa dhulbaantay habar jeclo ee lala yaabay raggii diraya ictisaam bay ahaayeen maanta waxay leeyihiin nimankii hadlayay nabadayadu waxa weeyaan inay labada maamul heshiiyaan oo ay xuduuda ka heshiiyaan oo laba maamul isu aqoonsadaan waxa lagu heshiin karaana waa somaliland oo laga tanaasulo iyo ayagoo ka tanaasulo waxay sheeganayaan labadaas baynu ku heshiin karnaa wax kale kuma heshiin karno nin kale nabad baa ka keenaya nimankaa waa nin somaliland ka tanaasulay oo ayagana federaalka inay hoos yimaadaan doonaya inagana federaalka inay hoos kala doonaya sabab kale ku heshiin karnaa ma jirto haddii ictiraafkii la doonayo daacad laga yahay dalka la ictiraafay ka mid noqon lahaayeenoo ayagoo socday inoo iman lahayen wax odhan xisaabiya dee wax iyagana siiya
taa waa la garanaya laakiin la dooni maayo sababta maanta Djibouti loogu shirayaa waa Mareykanka danihiisina soo galay ee noo diyaarka ah in la yiraahdo wada hadal baa noo socdeen sug taas hadday timaadana inaynu daawano maaha waa inaynu ka kicinaa meesha nimanka fadhiya cirro isaga inuu doonanay waa laga hoos kacay dowladdiisii waa la haystaa axmed siraaye waa inuu cudur daaranay kani maanta wuxuu nagu maaweelinayaa seminaar baan furay iyo halkan iyo magana sheekooyin gaagaaban iyo madaxweynayaasha horaan la shiray oo sawir la galayo kaliya iyadoo arrintiisu meel u taallo arrintiisu meel u taalla waxaas waa israacaad laynoo dhigayo shaqaa socota nimaynaan dhaarsan oo inaan shaqo u diran oo aynaan dooran baa inoo talinaya siduu inoogu taliyey horeba inoogu taliyey inoo qiyaamiyey fadhiga ha laga kaco waxaa ku mudaharaadayseen sheeko yaroo loo kalo in axmed moogaa tii masiirkiina iyo mustaqbalkiina god lagu ridiyo wata hadduu ina aqbali waayo waa inaynu ugu gallaa madaxtooyada nambarka somalilan ee badan waxaa luminaya waa shakhsiyaad waa inaynu ugu gallaa waxaan la hadlayaa ciidamadii jabhadda islaamiga inta ka nool maanta ee xoogga ah war waxaynu ku xoogii xinayba beelay ayaa maanta hortiina lagu iibinayaa qayrkiin ku iibinaya oo hufsiisanayaa waskhal duniye waxaan la hadlayaa waxgaradka dagaal bay nagu socda dhan walbay nagaga socda nabad aynan la joogin baynu ka sheekaynaynaa dagaalkana u diyaargarooba difaac u diyaargarooba inaga weerar ma nihine difaac u diyaargarooba nimankaa ayna iibinaya shakhsiyaadka koobana ee ammaanta madaxtooyadii noo fadhiyana ayna ugu galla madaxtooyada mudaharaad baynu bilaabaynaa mustaqbalkeennii baynu ugu bilaabaynaa fadhiga ha laga kaco haddii kale kosk maanta kan ka badan bayd ku tegaysa oo wallaahi ah dhiiqada xasan sheekh lugaa kula jiro ayuu halkan la soo gelaya xirsi baa inoo soo qaaday dhiiqooyinkii oo inoo sidaa aynu berida ka ahayn fadhiga ha laga kaco fadhiinoma yaale